Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Juqlaaw Media. Juqlaaw Media waxaa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska, suuqa kala iibsiga, kulamada, wixii sports sheegto. Wararka maanta aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid ah: ugu horeyn, waxaan galabta wada dheeli doonaa xulka qaranka Soomaaliya oo u bixi doono dhigeeda Iswaatiniya oo hore oo guuldaro 3-0 ugu soo qaadanay. Insha Allah galabta waxaan rajeyn doonaa in isbedel oo imaado dhanka guusha. Waxaa kaloo soo qaadan doonaa Haaland, PSG, Pedri, Barcelona vs Liverpool oo xalay wada ciyaaray. Lionel Messi maxaa laga leeyahay? Waxyaabahaas oo dhan. Intaan barnaamijka guda galin, waxaan iga codsanayaa inaad subscribe saartaan, share, like, comment aad nagu caawisaan si uu u gaaro asxaab badan channelkeeni Juqlaaw Media. Waxaan ugu horeyn aan galabta la dheeli doonaa xulka qaranka Iswaatiniya, kulankaas oo ka dhici doono cariga South Africa. Anagoo og in 3-0 nagala badiyay lugtii hore ee ku dheelnay Tanzania. Insha Allah guul ayaan u rajeynayaa xulkeena. Adigana insha Allah soo duceey. Maxaad ka rajeynay galabta? Sidoo kale waxaa maanta soo gudbin doonaa xidiga kooxda Brentford iyo xulka qaranka Denmark Christian Eriksen ayaa kusoo laabtay garoomada kadib 287 maalin oo ka maqnaa. Kadibna wuxuu gaaray shabaqa oo dhammaan taageerayaasha ay u wada istaageen, ay u wada sacbiyeen iyo soo dhaweyn ay u sameeyeen. Waana soo laabasho cajiib ah. Nasiib baan ayaa leeyahay Christian Eriksen. Xidiga kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Faransa Anthony Martial ayaa la sheegayaa inuu kusoo laaban doono garoonka Maslaxa Riyada ee Old Trafford kadib markii Sevilla iyo asigaba ay isfahmi waayeen, maadaama uu qaab ciyaareedkiisa soo celi waayey. Waxayna u badan tahay inuu Maslaxa Riyada dib ugu soo laaban doono markuu dhameysto bilihiisii amaahda. Xidiga kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis la gaaray kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan cariga Faransa. Video ka horeeyay aan soo sheegay ninkaas Pogba wuxuu sheegay inuu doonayo inuu koob ku guuleysto, sidoo kale oo qaab ciyaareedkiisii oo wacnaa oo kusoo laabto. Haddana waxaa soo baxayaba inuu heshiis la gaaray naadiga meelaas Paris iyo dhulkaasi oo la sheegayaa. Sidoo kale waxaa jiro Keylor Navas ayaa gurigiisa dhinac ka dejiyaa leeyahay 30 ruux ama 30 qoys oo reer Ukraine ah, wuxuuna siiyey dhar, cunno iyo meel ay jiiftaan. Gurigiisa ayaa isku bedelay meel oo xero camal si uu u gargaaro dadka ka soo jeeda cariga Ukraine oo dagaalo iyo kala guur ay ka jiraan. Sidoo kale meel iska dhig Haaland. Waxaa sidaas yiri madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ka dhisan cariga Spain magaalada Catalonia ayaa yiri sidaas maadaama uu aad iyo aad ugu walwalay qarshaadka ku baxayo in ninkaas garoonka Nou Camp la keeno, maadaama uu lacagaha ku baxayo wada galayaan ilaa iyo 300 milyan oo dhiganto 280 milyan oo doolarka Mareykanka. Maadaama uu milkiilihiisa iyo aabihiisa iyo naadiga Borussia Dortmund ay doonayaan in lacagahaas ay kala qaybsadaan. War hadda soo dhacayaan wuxuu sheegayaa in Rafinha oo garabka ugu dheelo naadiga Leeds United ay heshiis shaqsiga wada gaareen naadiga Barcelona
heshiis 5 sano ah, sidaas oo maalmo badan oo la iskugu dhignayo oo la dhahayo ninkaas Barcelona aa rabto, ninkaas saas aa rabto. Naadiga Barcelona iyo Liverpool ayaa xalay wada dheelay kulan saaxiibtinimo, sidaasna waxaa ku badiyey Barcelona oo goolka loogu hormaray kadib Steven Gerrard oo bandhigiisa sii watay asigoo waayeel ah markuu Riyoor shabaqa taabsiiyey, halka ciyaaryahan Pedri lasoo sheegay in uu nambarka diishaha xiran doono xulka Spain. Xalayna waxaa aragnay asigoo xiran. Waa xidig 19 jir ah aan weli gaarin 20 sano, haddana wuxuu hadiyad ka helay xulkiisa qaranka Spain oo ka qabsaday nambarkii 10aad, waana xidig u qalmo markii la fiiriyo tayadiisa. Sidoo kale Lionel Messi ayaa la sheegayaa in uu farxad buuxda ka helay xulkiisa qaranka Argentine kadib habeen hore markay 3-0 ay ugu adkaadeen xulkii la dheelayay. Leo ayaana gool dhaliyay kulankaas, bandhigiisana high level ahay, sidoo kale Di Maria asina shabaqa taabtay. Marka Leo ayaa farxad buuxda ka helaya dhankaas iyo wadankiisa Argentine, halka Paris uu ku dhibaatoonayo. Sidoo kale wararka ayaa nuu soo gaarayo xidiga kooxda Manchester United Marcus Rashford inuu ku dhow yahay heshiis waali ah kooxda Arsenal, sidaasna waxaa laga maqlay majaladaha, waana xan oo kaliya, wixii oo run ah gadaal laga ogaa doonaa. Waxaa hadda lasoo saaray waqtigan barnaamijka duubayo safka rasmiga xulka kubadda cagta Soomaaliya. Saawada ognaan goolka waxaa kusoo bilaawday Mustafa Dhakuja, daafacyadu waxa waaye Axmed Cali, Axmed Said, Cabdirasaaq, Yunis, sidoo kale ciyaartooyda dhammaan waxaa kaloo ka mid ah Abel Gegli, Liibaan iyo Ibrahim Ilyas, Xuseen, Sayid Xaaji iyo Jama Maxamed. Barnaamijkeena halaas ayuu noogu egyahay. Wixii warar soo kordhan insha Allah waxaa kala socon doontaan barnaamijyadeeni dambe. Barnaamijkan waxaa soo saaray anigoo Cabdiraxmaan Xasan Cumar. Kusoo dhawaada Jola Media, hana ka iloobin subscribe, like, share, comment. La socodkiina waa muhiim. Share gareeya si dad badan